Assalaamu calaykum dhammaantiin saaxiibada sharafta badan. Muuqaalku wuxuu ku bilaabmayaa aabe walaacsan oo lagu magacaabo Matthew oo Canada jooga oo daawo u raadinaya gabadhiisa Sarah oo lagu qasbay inay ku noolaato sanduuq si heer sare ah loo xiray. Sarah waxay ku dhalatay xaalad hidde-side aan caadi ahayn oo loo yaqaan Severe Combined Immunodeficiency ama Steinberger syndrome. qof kasta oo la ildaran xaaladdan wuxuu leeyahay habdhiska difaaca oo daciifa. Toddobaad kadib Matthew wuxuu raacay diyaarad u socota Paris. intii uu ku sii socday guriga waxaa u soo dhacay telefoon maqalyo muuqaal ah Sarah oo ka codsatay inuu u soo degdego guriga. intuu qoslay ayuu gurigiisii ku noqday. Sarah iyo xaaskiisa saynisyahanada ah Anna waxay ku nool yihiin dhismo kala duwan, laakiin gurigooda wuxuu ku yaalaa isla wadada. Matthew wuxuu marka hore alaabtiisa iska dhigayaa aqalka ka hor intaanu arkin qoyskiisa oo wadada hareeraheeda degan. Wuxuu diyaar u yahay inuu galo dhismahooda, halkaasoo uu nin oday ah u soo dhawaaday albaabka isagoo xiran maaskaro ku xiran haanta oksijiinta. Matthew ayaa albaabka u furay isaga oo isla markiiba soo gaaray guriga. Anna ayaana salaantay. wuxuu soo booqday Sarah wuxuuna u keenay laba hadiyadood, daawooyin iyo memory card ay ku jiraan muuqaalada soo jiidashada leh ee Canada. waxay go'aansatay inay la wadaagto muuqaalka quruxda badan saaxiibkeed qarsoodiga ah. Matthew wuxuu ku soo laabtay Anna wuxuuna u sheegay wax ku saabsan daaweynta suurtagalka ah ee Sarah, taasoo lagu soo saaray Canada horumar caafimaad awgeed. Si kastaba ha ahaatee, Anna way ka labalabaynaysaa inay halkaas ku qaadato daaweynta, sababtoo ah daaweynta ayaa weli ah mid cusub oo aan weli soo saarin natiijooyin dhiirigelin leh. waxay sidoo kale u baahan tahay inay u guuraan Canada haddii ay shaqayso daaweynta. dhanka kale, Sarah ayaa wacday saaxiibkeed sirta ahaa. labaduba waxay la ildaran yihiin xanuun isku mid ah sida ay qabto. way ku faraxsan yihiin muuqaalka maadaama uu maaweeliyo xitaa inta ay ku jiraan sanduuqyadooda. Matthew wuxuu ku soo laabtay gurigiisii kadib markuu ku qanciyey Anna inay baadho suurtagalnimada daaweynta. wuxuu rumaysan yahay in Sarah ay awoodi doonto inay dibadda u soo baxdo walaac la'aan. in yar kadib, dhulgariir ayaa ku dhuftay Paris meel aan waxba ka fogeyn oo damiyey korontada dhisme kasta. si uu u sii shaqeeyo sanduuq tiknoolajiyadeedka sare ee Sarah waxay ka beddelaysaa korontada una beddelaysaa qaabka bateriga. Matthew ayaa bannaanka u soo baxay, halkaasoo uu ku arkay dad ka cararaya oo u dhimanaya daruur aad u weyn oo sun ah oo weerartay waddooyinka. waxa uu dib ugu soo yaacay gurigii Anna si uu u badbaadiyo, laakiin waa inay Sarah keligeed kaga tagaan sanduuqa, sababtoo ah mashiinka ayaa ka ilaalinaya gaaska waxyeelada leh ee bannaanka. lamaanuhu waxay ku qulqulayaan saqafka sare ee dabaqa, halkaasoo lamaane duq ah uu ku soo dhoweeyey. waxay ka fiirinayaan balakoonka si ay u arkaan ceeryaamo ka soo baxaysa hoostooda, sababtoo ah ceeryaamada sunta ahi waxay u eg tahay inay ka culus tahay hawada, mana soo kici karto oo cirka kuma sii faafi karto. Sarah waxay ku sugan tahay meel ammaan ah sanduuqa dhexdiisa. adeegsiga lamaanaha ee taarka hadalka bateriga sanduuqa ayaa aakhirka u dhacaya ilaa 4 god. Matthew iyo Anna waxay garwaaqsadeen inuusan sanduuqu sii shaqayn doonin. natiijo ahaan waa inuu odayga waayeelka ah ka qaataa haanta oksijiinta, kaasoo ku noolaa dabaqa iyaga ka hooseeya. qofna wax uma tarto. hadda odaygii ayaa ceeryaamadii u dhintay. aad buu u neefsanayaa ka hor intuusan ku boodin ceeryaamada dilaaga ah. dabadeedna daaqadda ayuu ka soo baxayaa oo si toos ah ayuu u quusayaa dabaqa hoose. wuxuu jabsaday gurigii odayga, wuxuu ka dafay haanta oksijiinta, wuxuu maaskaradii ka saaray odayga wejigiisii oo uu ku hubsaday wejigiisa. wuxuu kaloo goobta ka soo ururinayaa sahayda cuntada. wuxuu arkayaa ey yar oo caafimaad qaba oo dariiqa si xor ah uga ordaya intuu sahayda ururinayay maadaama hooyadii ay ku dhimatay qolka jiifka. intaas kadib, Matthew wuxuu booqanayaa Sarah si uu u siiyo sahayda cuntada oo uu ugu beddelo sanduuqa bateri cusub. markii uu soo dhammaystay howlihiisa shaqo, wuxuu u baxayaa bannaanka si uu u soo indhaindheeyo khasaaraha ka dhashay. waxaana uu la kulmay dad shacab ah oo daadsan hareeraha waddooyinka iyo gaadiid la dayacay oo waddada xanibay. waxa kale oo uu la kulmay 2 askari oo hogaaminaya koox badbaaday, kuwaasoo dhammaantood xiran maaskaro gaas oo wata taangiyo. marka mid ka mid ah askarta uu arko Matthew oo keligiis ah, wuxuu u soo bandhigay inuu ku soo biiro safarkooda Montmartre, halkaasoo aysan ceeryaamo soo gaari karin. nasiib daro, Matthew wuu diiday dalabka sababtoo ah qoyskiisa ayaa guriga jooga. nasiib wanaag, ka hor intuusan ka laaban kooxdii safraysay, askarigu wuxuu si deeqsiinimo leh ugu dhiibay 2 haan iyo maaskaro. Matthew aakhirkii wuxuu ku soo laabtay gurigiisii. Anna iyo Sarah way ka walwalayeen isaga, sababtoo ah wuxuu maqnaa muddo dheer. wuu ka cudur daartay inuu walaac ku abuuray, wuxuuna Anna uga waramay geerida musiibada ah ee magaalada iyo kooxda badbaadayaasha oo u guuraya Montmartre. saacad kadib wuxuu ogaaday ceeryaamo soo kacaysa marba marka ka sii dambaysa, taasoo muujinaysa inaanay mar dambe sii joogi karin guriga. habeenkii, odaygu wuxuu u dhiibay Matthew iyo Anna raadiyaha si ay ula socdaan wararka. si kastaba ha ahaatee, raadiyaha oo jaban awgeed, odaygu wuxuu ku adkaysanayaa inuu isagu hagaajiyo. ugu dambayntii, dhowr daqiiqo kadib wuu quustay. dhanka kale, Anna ma awoodin inay saaxato, waxayna isku dayaysaa lafteeda inay dayactirto raadiyaha. si kastaba ha ahaatee, qalabkeedu wuxuu yaalaa gurigooda, sidaas darteed waxay fuulaysaa dabaqa sare oo ay soo qaadanaysaa qalabkeeda.
kadib waxay booqasho ugu tegaysaa Sara oo si fiican ugu nasanaysa sanduuqeeda. maalintii xigtay Anna waxay si guul leh u dayactirtay raadiyaha waxayna maqleen ogeysiis dalka oo dhan ah oo ah inay gudaha ku jiraan oo ay xiraan dhammaan meelaha bannaan si aysan ceeryaamadu u soo gelin. intaa kadib waxay maqleen qarax waxayna fuuleen saqafka sare si ay u hubiyaan halka uu ka dhacay. waxay meel fog ka arki karaan badbaadayaasha oo banaanbaxaya rabshadna ka samaynaya Montmartre. kadibna waxay ku soo noqdeen gurigoodii. waxay go'aansadeen inay u guuraan Sara saaxiibteed sababtoo ah waxay ku nooshahay buuraha. Sarana waxay ku sii jiri kartaa sanduuqeeda waqtigan la joogo. waa meel aad u fiican in lagaga badbaado ceeryaamada, laakiin Sara waxay u baahan tahay suud. Anna waxay dib u xusuusanaysaa labiska shaybaarkeeda oo ku habboon Sara. Sara waxay waalidkeed ka codsatay inay badbaadiyaan saaxiibkeed sirta ahaa, kaas oo ku nool meel u dhow oo hadda waalidkiis keligii kaga tegay sanduuqiisa ka hor intaanay tegin. waalidiintu marka hore way diideen maadaama ay haystaan hawo xadidan, laakiin waxay ku qancisay in haddii ay ku jiri lahayd booska saaxiibkeed ay si degdeg ah wax walba halis u gelin lahaayeen si ay u badbaadiyaan iyada. wax yar kadib waxay u baxayaan banaanka si ay u badbaadiyaan gacalyaha Sara, laakiin qorshahooda waa laga leexiyey markii ay dad cun ah u ceyrsado. Matthew wuxuu ka siibtay buundada oo galay webiga Seine inta lagu jiro orodka sababtoo ah ma arki karo wadada ceeryaamada qarada weyn awgeed. dhanka kale Anna way sii wadaa orodkeeda waxayna raacaysaa baska si ay ugu xirto eyga. intaa kadib waxay ka soo baxaysaa daaqada gaariga oo waxay ku noqonaysaa shaybaarka. dhanka kale Matthew wuxuu si badbaado leh ugu soo noqday dhulka. jaakadiisii qoyaneed ayuu mid meyd ah ka bedelanayaa wuxuuna eegayaa suudka hazmad ee ay xidhaan shaqaalaha caafimaadka ee gaariga ku dhex xaniban. iskuma dhibin helitaankiisa sababtoo ah Anna ayaa filaysa inuu si badbaado leh ugu soo laabto shaybaarka. lamaanaha ayaa si degdeg ah u midoobaya oo soo gelaya xarunta iyagoo koraya dabaqa uu suudku yaalo. intay sii socdeen waxay ku dul yimaadeen dab qol ka mid ah dabaqa, laakiin way iska indhitiran oo waxay ku sii socdeen jidka. durbadiiba suudkii oo shandad ku xidhnaa ayay soo saareen waxayna ka soo baxeen sagxadda albaabka, markaas oo uu qarax ka dhacay hortooda gidaarkana ku garaacay. qaraxa ayaa ka dhashay dabkii ay horay uga tegeen. nasiib daro Matthew ayaa ku dhaawacmay qaraxa, kaasoo sidoo kale burburiyey tuubada isku xirta maaskarada iyo haanta. markay fuulaan dabaqa sare waxaa lagu qasbay inay wadaagaan hal maaskaro iyo haan dhibaatada aan la filayn awgeed. Anna isla markiiba waxay si degdeg ah u dhayaysaa nabaradii Matthew dabaqa sare. waxay diyaar u yihiin inay dib u noqdaan ilaa ay arkeen in haanta ay faaruq tahay kuna filnayn labadooduba inay isticmaalaan isku mar. wuxuu ogolaanayaa inuu meesha joogo inta ay suudka qaadayso iyadoo isticmaalaysa haanta. ka hor intaanay kala tegin lamaanuhu waxay isu muujinayaan jaceylka ay isu qabaan midba midka kale, waxayna muujinayaan mahadnaqa fursadda ay ku wada joogeen iyo sida ay uga go'an tahay. si degdeg ah ayay u kala tegayaan si ay u gutaan waajibaadkooda. Matthew wuxuu isticmaalayaa saqafyada si uu ugu wareego agagaarka. intii uu ku guda jiray hawsha kormeerka ayuu arkayaa xero ku taal meel baabuurta la dhigto oo ay ka buuxaan haamo, sahayo cunto ah iyo maaskarooyin. wuu ogsoon yahay in mulkiiluhu uu digniin halis ah albaabka ka hayo, laakiin wuxuu u baahan yahay inuu la noqdo maaskaro iyo haan, sidaas darteed wuu xadayaa. nasiib daro mulkiiluhu waa booliska magaalada kaasoo soo noqday kadib markii uu kaydiyey sahay dheeraad ah. Matthew wuu diiday inuu soo celiyo qalabka, sidaas darteed wuxuu ku booday ceeryaamada khatarta ah oo sii jiitay askariga. askarigii ayaa la dilay kadib markii uu neefsaday gaaska dilaaga ah, laakiin Matthew ayaa ku guulaystay inuu helo qalabka. wuxuu bilaabay socdaalkiisii dib ugu noqoshada guriga. dhanka kale Anna waxay ku soo degdegtay gurigeedii, laakiin haanta ayaa dhammaatay isla markii ay soo gashay dhismaha. si degdeg ah ayay qalabka u tuuraysaa oo waxay u dhaqaaqaysaa jaranjarada dabaqa sare. nasiib wanaag way ka badbaaday waxayna si ammaan ah u soo gashay aqalka sare. aad ayay ugu faraxday inay ka badbaaday safarkaas halista ahaa, balse waxay ka niyad jabtay inay aragto shandadii oo qarax ku gubatay. markay furto boorsada waxay ogaanaysaa in suudku uu gubtay, taasoo ka dhigaysa khasaare dhammaan dadaalkeedii khatarta ahaa. intay sugaysay soo noqoshada Matthew waxay nafteeda ku qasbaysaa inay degto. fariin degdeg ah ayaa ka soo muuqatay telefoonkeeda iyada oo lagu wargelinayo in sanduuqa lagu daminayo 10 daqiiqo gudahood, sababtuna ay tahay bateriga oo ku dhawaaday inuu dhammaado. way argagaxday sababtoo ah waxaa ka maqan qalabkii lagama maarmaanka ahaa, laakiin waxay doonaysaa badbaadinta Sara nafteeda. markaa waxay go'aansatay inay mar kale degto. Sara ayaa si lama filaan ah u weydiisay sida uu jacaylku u dareemayo ka hor intaanay dhicin. Anna waxay ka shakisan tahay in gabadheeda ay la hadlayso saaxiibkeed qarsoon. Anna cabsideeda dhinac bay iska dhigaysaa si ay u siiso Sara jawaab daacad ah oo dhab ah. waxay ku dhiirigelinaysaa gabadheeda inay jeclaato sababtoo ah waxay xaq u leedahay in la jeclaado. waxayna siinaysaa rajo ah inay u dagaalamaan noloshooda si wada jir ah ilaa dhammaadka waqtiga. sanduuqa Sara wuxuu joojinayaa shaqada dhowr daqiiqo kadib, iyadoo soo maraysa hawo-mareenka. ceeryaamadii ayaa si tartiib ah u gelaysa sanduuqa. Anna waxay timid maaskaro la'aan, laakiin waxay isla markiiba ku xiraysaa baytariyada korontada si ay dib ugu daarto sanduuqa.
sanduuqa ayaa dib u shaqaynaya oo si degdeg ah ceeryaamada uga saaraya mashiinka. Sara way u mahad celisay laakiin isla markiiba waxay ka codsatay hooyadeed inay dib u noqoto. Ana waxay ruxaysaa madaxa oo ay sii wadanaysaa hawsheeda. Dhanka kale Matthew wuxuu soo galay guriga waxyar kadib markii ay Ana ka soo baxday qolka. Sara waxay u degdegtay caawinta hooyadeed sababtoo ah waxay ka shaqaysiisay sanduuqa iyadoo aan maaskaro gashanayn. Matthew ayaa si degdeg ah uga soo baxay dabaqa oo kor u raacay jaranjarada. Wuxuu doonayaa inuu mar kale arko xaaskiisa laakiin quus ayaa soo gaaray isaga markii uu ogaaday inay dhimatay oo ay jaranjarada saaran tahay. Wuxuu ku soo noqonayaa aqalkiisa sare ee dabaqa wuxuuna qof walba u sheegayaa warkii ugu xanuunka badnaa. Sara waxay si qoomamo leh nafteeda ugu eedaysay geerida hooyadeed laakiin wuxuu u sharxay inay ahayd go'aanka Ana inay mudnaanta siiso oo ay badbaadiso iyada taasoo ah mid ka baxsan awoodooda. Daqiiqado kadib dhulgariir labaad ayaa gilgilay dhulka taasoo keentay inay ceeryaamadu kor u kacdo. Xaaladda sii xumaanaysa ayaa ku kaliftay inuu dibadda u baxo oo uu soo qaato suudkii Hazmat ee uu horay u soo arkay. Wuxuu isku dayayaa inuu ku qanciyo lamaanaha waayeelka ah inay raacaan laakiin way diideen inay baxaan maadaama ay ku qanacsan yihiin inay sii joogaan oo ay rumaysteen waqtigoodii dhulka inuu dhammaaday. Wuxuu ixtiraamayaa go'aankooda si dhaqso ah ayuuna ugu soo baxay waddada. Intuu raadinayo suudka Hazmat ayay lamaanihii horena wada dhinteen. Matthew aakhirkii wuxuu helay suudka Hazmat iyo mooto u qalanta. Markuu wiilka uu u aqoonsado inuu yahay saaxiibka qarsoon ee Sara ayaa si lama filaan ah u xanibay waddadii uu mari lahaa taasoo keentay inuu ku rogmado oo uu ku dhaco baabuurtii laga tegey. Wax walbana wuxuu ku soo celinayaa dabaqa. Wuxuu la dhacay xanuunkii shilka iyo dhaawac kale oo ka soo gaaray dhafoorka. Matthew wuxuu soo toosay si uu u arko mucjiso. Wuxuu arkay Sara iyo saaxiibkeed oo hortiisa taagan iyagoo aan xirnayn difaaca ceeryaamada. Wuu iscelin waayey oo farxad ayuu la ooyey mar haddii Sara ay ugu dambeyntii ka soo baxday sanduuqeeda. Ugu dambeyntii wuxuu isku duubay inantiisa oo uu iska siibay maaskaradiisa si uu u dhunkado. Ceeryaamada sunta ahi waxay u muuqataa inaanay wax saameyn ah ku lahayn da'yarta ama kuwa qaba cudurka Steinberger syndrome. Matthew wuu dhacay isu imaatinka kadibna wuxuu ku soo toosay sanduuqa Sara. Aabbaha iyo inanta ayaa boosaskooda kala beddeshay. Sara ayaa hadda isaga daryeelaysa. Muuqaalka halkan ayuu ku egyahay. Fadlan taabo subscribe iyo like haddaad jeceshahay muuqaaladan oo kale. Kulanti dambe oo aad u xiiso badan. Mahadsanid.